meel kasta joogtaan dunida dacaladeeda kusoo dhawaada barnaamij kooban aan idinka diyaarinay kalfadhigii 33aad ee golaha sare ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo. Runtii waxaan wanaagsan daawadayaal waxa uu ku tilmaansoori magaalada Berbera maanta ka furmay kalfadhigii 33aad ee golaha sare ee dalada heer qaran ee ururada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo. 33aad ee xubnaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo oo 4 bilood ba hal mar la qabto iyadoo uu shirka gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland Mudane Siyaad Cumar Cali ayaa waxa xubnaha golaha toddobaad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo waxay diiradda ku saareen isla markaana ay kula fukureen ajendayaashii si kastaba ha ahaatee xubnaha golaha toddobaad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo ayaa kalfadhigooda si weyn uga dooday ajendayaashii horyaalay iyadoo dhanka kalena golaha toddobaad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo kalfadhigooda 33aad ay warbixin buuxda kaga dhageysteen agaasimaha dalada dhalinyarada Soomaaliland Mudane Saciid Maxamed Axmed isla markaana warbixin ka siiyay guud ahaan sida uu xafiisku shaqeynayay 4 bilood waxaana gabagabadii kalfadhigan ka soo bixi doona warmutiyeedkii rasmiga ah ee goluhu 4 bilood ba mar soo saari jiray